يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجابا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. aada u mahadsantihiin sida wacan ee wanaagsan ee u soo fadhiisateen sida wacan ee wanaagsan ee u soo fadhiisateen ee diyaar ugu tihiin inaad dhegaysatiin kalaamullah iyo ilaahay kalaamkiisa laga sheekeynayo. waa idinkaga mahad celinayaa. waa ay ogtihiin qof cilmi dheer ee ma haysta, laakiin waa iska war badanaa, waa iska war jeclaa, waa ay ogtihiin. sidaas darteed marka waxaa jeclaystay inaan ila wadaago maxaadar cibaankeeda uu yahay بر الوالدين وإحسان فلك والدك جرتان كينا انتانا دلانين ايغا صوب وها إله سبحانه وتعالى ايانا نغو بيري والدكي وإله سبحانه وتعالى نغو بيري هوي آباء دباتو والبا وحي أمران سيدي أناقا أن هرمر أغاري لهيني أناقا أن لغوهي نغو استاقي لهيني أن أنقان لهيني أولاد ونعكسن أولاد لغو فانو سيدا أنو نقل هيني. إحسانك والدك أولي هاي فردقان كلي لغو مسوكو بكرو، لكن وحان جعلستي وحير إنان كهالله أو وحير أن تتابتو. سيدا أن أقنا هاي نبي الله يحيى وحالغو أماني قرآنك وحوناها مدباري وأهوالد كيسا. وحاكلو aan ognahay nabiyullaahi ibraahim in uu ku riyooday asagoo la dhahayo wiilkiisa gowrac. riyada nebiyadana waa waxyi, amar ayuu ahaa. wiilkiisa markuu u imaaday uu dhahay wiilkayga waxaa lay amray inaan ku gowraca, ma uusan ka qalqalin arrinkaas, ma uusan ka labalabeenin, wuxuuna dhaha wixii lagu farsameey. midaasna waxay caddaynaysaa baariga uu yahay wiilkaas iyo sida uu baari u yahay, uu waalidkiisna u adeecsan yahay. maanta dadka jira oo aniga xitaa aan u horeeyo, waalidka ixtiraam weyn ma siiyaan. dhalinyarada maanta joogto ixtiraam balaaran ma siiyaan waalidiintooda, ayagoo wax walba u sameynayo oo wax walba ay naftooda intaan ahayn u huraayo, naftooda xitaa u hureen. waxaa arkaysaa gabar guriga hooyadeed joogto oo hooyadeed wax walba ay u sameynaysa, waxbarashadeeda ay ka bixinaysa, labiskeeda ay ka fikiraysa, haddana waxayba taagan tahay gurigan waa dhibsaday hawshii maanta dhan wax lee sameey, wax lee yeel, gurigan shaqadiisa maba dhamaataba, gurigan waa dhibsaday, waa nacay. qofka aan nacaysid adiga markaad saqiirka ahayd ee quraanshada iska celin karin kumuusu dhibsan jirin. wax walbo kaa imaadana wuu kaa dhaqi jiray, bal wuu ku soo barbaariyey, tarbiyadaas wanaagsan uu ku siiyey, haddana waa dhibsanaysaa. nin taabiciinta ka mid ah oo taabiciinta ninka u qayrka badan sida la sheego oo la dhihi jiray uweys wuxuu ahaan jiray nin baras ka soo baxay, laakiin ilaahay subxaana watacaala uu baryay, ilaahay baraskii waa ka baabi'iyey. uweys nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay ninkii arkay inuu dhaho ninkaas ii duceey, mansiladaasna waxaa gaarsiisay baarinimada uu ahaa, hooyadiisa baari uu ahaa. markastoo aa noqotid baari, ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku gaarsiinayaa mansilo wanaagsan, owlaadaadana baari ay kuu noqonayaan, ummadoo dhanna way ku jeclaanaysaa. u ixsaan falka waalidka ma ahan mid inta lagu soo koobi kara. inaan waalidkeena u ixsaan falno oo aan noqono dad wanaagsan. maanta waxaa ka hadlaya xadiis ma soo qaadanayay, aayad quraanna ma soo qaadanayay, laakiin hadal caadi ahaan aan ku sheegayaa. inaad waalidkaaga u ixsaan fashid waa arrin aad adiga kugu noqon doonto horumarkaaga, jiritaankaagii. hadhow waxaa noqonaysaa qof ilmihiisii ay baari u noqdaan, si kastay kaaga halaabaan
ixsaanka adiga waalidkaaga u soo fashay iyo ducada waalidkaaga aa ku garab taagan mid uu kaaga badbaadaya shas xaqiiqo waxa kaaga ah waalidka habaarkiisa inuu soo laabanaynin gabdhay yaraatihiin ma sha Allah ee diinta jecel aad u wanaagsan waxaan laga doonayaa inaan noqotin kuwa adeeca waalidiintooda kalaamka ee baranayana ka run sheega ha noqonin sifada aa leedahay dugsiga inay ahaato ee gurigiina laga dareemo hooyada baari u noqo aabaha baari u noqo inaad baari noqotid wax ka wanaagsan ma jiraan cunuga baari mar walbana waxa dhashid ayaa baari ku noqonaya adduunyada rajaa ka leedahay maanta musaafir ma ka taadi waa si dhimanaa ma leedahay karfan ma wadataa hadda xataa ma dhimanaysid waqtigaaga ku dhimanay adoo musaafir ahayn oo qof walba musaafir uu yahay laakiin inta aad joogto hadeertaan ma ku tashanaysid inaad dhimatid qof walba rajaa adduunyada uu ka leeyahay inuu ilmo dhalo inuu guursado inuu ilmuhu dhalo arko adoo rajadaas leh marka ha noqonin cunka caaqa adoo TikTok fiirsanayo iska baashaalay kaal cajiinka soo qas markii lagu dhaho qeeli oo guri dhan gariiray ha isku dhihin si tartiib ah naxariis ku jirto hadda gabar saaxiib aad tihiin oo iskuulka isku barateen markay kula hadlays ha abaay aadheesa naxariis aka soo go'aysa adigna maxaa lagaaga baahan yahay midaas mid ka sii wanaagsan inaa hooyo macaan ku dhahdid aabo ku dhahdid intii aabo haysato marka u jilicsanaanta iyo u dhimrinta waalidka wax ka wanaagsan ma lahan waxaa arkaysaa hadda fiiri qofaa wuxuu bartaa iskool ama jaamacad wax walba uu haysto waa laga bixiyaa guriga koronto ma laga weydiiyaa hadda koronto ma lagu weydiiyaa cuntada gurigaas ma lagu weydiiyaa waa maya wax walba gurigaas ku saabsan lagu weydiiyo xitaa internet wax walba ay ahaato gurigaas adiga waa ka cuntaa waa ka cabtaa hawsha yarta ah kaaga soo aada alaab dhaqo iyo dhul xaaqo waa ka cabaadaysaa noloshaan waa dhibsadaa lagu dhahaa hadda kor waxaa dhacday gabar waxay la nooleed waalidiinteeda aaday u jeclaayeen waxay dhiganaysaa jaamacad ayadoo jaamacadda dhiganaysa wax walba loo sameeyay guriga xitaa shaqaalaha jooga waxayba dhahday gurigan iyo dadka ku nool waa dhibsaday gurigan iyo dadka ku nool waa dhibsaday waxay fisraadeedu waxa waaye hooyo aab waa dhibsaday le wax kale qof kale aad dhibsanaysa guriga ma joogaba dadka waa simintiin walaalaatiin maano laakiin guriga ayaa iska leh asaaskiisa yaa hooyo aabo gurigan waa dhibsaday hooyo aabo waa dhibsaday la mid tahay gabadhii way baxday waxay aaday waa tahriib ay dhahday Nairobi aaday reer qaraabe u tagtay bil kasta markii laga bixiyo dharkeeda iyo waxeeda aabeed $50 siin jiray iyo jaamacadeeda iyo waxeeda dhan markii laga bixiyo $50 siin jiray shopping dhigal dhigi jiray gabadhii saas ugu nooleed gurigaas waxay sameysay way baxday guri islaameed dhex fadhiisatay waxbarashadeedii koow way dayacday mid labaad waalidkeeda qalbiga iyo niyada uu ku hayo waalidkaaga hadii aad ka jibisid يعني همي رجد وكالية وحس ليه هيركاس كوجار عنجاجا عنج هيركاس كوجار أصلهات هدو كنيج بيوكلوا كورا عني وحبرشدان إيه وحان أديك أهيس مرو نجيب حوج لواي هوارك سان الله كويا لما عرفت إنه هوار أو سان الله كويا لوده ما هوارك هوارك والد إنه قلبي كهوار واي أما كلام أسق أنا أقل من آدم كبدي واب حذي غير خرابي هنا ماشي وتكتي مركي تكتي meeshan qurbal jooga hawshaada qabso wax walba waa lagu gumeysana si kasto yaani gurigaaga iyo guri kale isku mid maahan dadka si kasta u wanaagsan yihiin qof xun gurigaas uu ku nool yahay leey haday maamadu wanaagsan tahay qof xun oo kale guriga ku nool yahay gabarta xumaad wiilka xumaado gabadhii aad reerkii is qawan waayeen hawsha guriga dhan ayada loo daayay cunta karinta waxaaqida naag shaqaale joogto wala buri waxa la gabdhiya isku soo bateen iska bax sidii gabadhii ku baxday maxaa soo har ayada soo hartay gabdhii dhan khad baa taleefanka sal qaadana qof walba luuqay gali ayada si labada maalmood isku dhigayso bal reerkan waxa lahayd martii uu tahay qabo oo isku gudbiisay sheekada dhan ayada ku soo biishootay heer waxay gaartay oo adkeysan weyso ee gabdho guri la kireysad hadaa gabar la kireysato waa inaa shaqaysataa magaaladaas gashaa ileen gurigaas wax walba ka soo baxa waa isku leedihiin qofkan cunta la karsana waa isku leedihiin marka waalidkaaga wuxuu kula jecel yahay inaad horumar weyn gaartid horumarka aad gaaraysid buu kula jecel yahay gabdhaha waxa arkaysaa waalidkayga wuxuu u qasbira waa wiil lagu dhahaa wiil muxuu qasbaya waalidkaaga
laakiin wuxuu jecel yahay inaad reer dhisatid oo mustaqbal yeelatid oo gabar wanaagsan oo sharaf leh aad noqotid adoo sharaf leh uu ku guuriyo kama ahan xumaan jecel uu ku qabo darteed uu ku dhahay aan ku guuriyo marka in waalidka loo ixsaan falo waxay ku gaarsiin kartaa manzilo wanaagsan waalidkaaga markuu kuu duceeyana ummadaan oo dhan way ku jeclaanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weydiisanaynaa aniga iyo idinkaba inuu waalidiinteena kuwa baari u noqdo naga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga dhigo awlaad baari ah oo waalidkooda mar walba adeeca u naxariista xasuusta markay dhintaana adduunyada qiimo ma leh qofkii cunug wanaagsan oo saalixa ka tago aakhir markuu dhinto wuu u soo duceynayaa cunugiisa qur'aan uu akhrinaa sadaqo u bixinaa ilan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sheegay cunug wanaagsan inuu iska lumeyn hadaa dhimatay hadaa nooshahay marka waxaan rajaynayaa hadal badan waa iska hadal badanaa laakiin waxyaabo badan oo hadartan intifaac ay mani sheegin maanta waxay ahayd in halahaas ni sheego waana ku mahadsantihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala hanoo dambi dhaafo kuwa loo naxariistana hanaga dhigo kuwa awlaad baari ah Allah naga dhigo anagana ilaahay awlaad baari ah siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala gabdhaha wanaagsan quraanka u fududeeyo anaga dhan hanoo fududeeyo ilaahay waalidiinteena jannatul firdaws al-a'la ha geliyo dhammaanteena firdaws al-a'la Allah nagu kulmiyo sida xalaqadan ugu kulana jannada Allah nagu kulmiyo halkaas ku soo koobaya